waxyaabaha cajiibka kale ah xitaa wuxuu yidhi anigoo da'yar oo 16 sano jiro ayaa waxaa laygu qoray waraaqad in aan jiro 16 sano waxaa laygu dhahay orod magaalkaaga iska dhici soo adeerka yacni adeerkiis masxaan buu u sameeyey mise maanta araggan asiga u yeelay malas dhigi kara adeerka maanta asigoo hadduu wiilka araggan leeyahay bal adeerka noloshiisa waa sidee adeerka canugan gade noloshiisa waa sidee dee dad canugaana dee guri oo braaw assalaamu calaykum aad baan idin salaamayaa anigoo ah abuu walad waxaan rabaa inaan halkan idin ula falanqeeyo muuqaal uu yarkan abdaasiis lahayo baahiyey uu wareysi uu kaga qaadiyey yar miyaw waa Soomaali ah yarkan runtii waa yar sidoo sheegayo uu 99% wuxuu ka tirsanaa gaangistaradaasoo waxaa ka muuqata astaantii dee wuxuu yiri xabsi baan u galo gaal shirada Mareykankan u galay marka yarkan qisadiis aad bay xanuun badan tahay oo wuxuu yiri anigu Mareykanku waalid muusan geelin buu yiri waxa geeyay adeerna markuu uu igato yiri ana wuxuu yiri maanta ama wuxuu yiri waxaan Mareykanku sameeyay jira idin sheego dhanaag xitaa waan gadooda warka yarkan waxa waran aantii qisadiis markaan horta muuqaalkan aad u dhameystay soo yarkan wuxuu u baahan yahay fast wiilkan waxa ku duuban waxaa loo baahan yahay wariye xeelad u leh khabiir u leh in uu yarkan wareysi heer sare u baahan yahay yarkan wuxuu u baahan yahay in laga diyaariyo muuqaal dhalinyaro badan oo qurbaha jira iyo kuwa dalka buu badbaado u noqon karaa Soomaaliya wuxuu yiri gaangister wuxuu yiri waxaan noqdo in aanan gaangis wuxuu yiri ciyaalmaamo ma noqdaan waxaan noqdo legend yarkan sidoo noo sharaxay ama sidoo yacni tattooyada jirkiisa ku yaalo wuxuu yiri tattooga madaxa ii saaran wuxuu yiri waa xaafada degnaa magac uu ku sheegay kan labada dhibicna wuxuu yiri waa habeen iyo maalin every night every day buu isticmaal okay tattoo kale waxaa jira oo gacanta ugu yaalay oo black hole yacni waxyaabaha dhalinyarada yacni sudan Mareykan baan la dagaalanay Mareykan qaabka loola dagaalo waa loo geeyay sabab warka yarkan tattoo ahaan buu u isticmaalay oo waxaan dhihi karnaa asana waxa waaye waa taariikhda qaldan la baray dadkeena ama dhalinyaradana soo wiilkan Soomaalidu hadda iskan ku baraarugin kulay muuqaalo badan oo deegaankan oo kala oo kuwa ka sii daran ba social media ay maaday maalmo baa la xiiseeyo lagu qiiro jabaano laga tagay aragnay kan in lagu baraarugo kulay dhici maysa sidaan filayo waxaan idin leeyahay Soomaaliya yarkan waxa waaye dhacdooyin badan buu ku sheekeeyay nin tahay anigu waa la gaday Mareykan markaa tagay oo waxa cajiibka kale ah xitaa wuxuu yiri anigoo da'yar oo 16 sano jiro ayaa waxaa laygu qoray waraaqad in aan jiro 16 sano waxaa laygu dhahay orod magaalkaaga iska dhici soo adeerka yacni adeerkiis masxaan buu u sameeyey mise maanta araggan asiga u yeelay malas dhigi kara adeerka maanta asigoo hadduu wiilka araggan leeyahay bal adeerka noloshiisa waa sidee adeerka canugan gade noloshiisa waa sidee dee dad canugaana dee guri oo braaw ayadiisa ugu dhisay ee dudumisay waa xaaraan aniga xalaal haya hadday xalaal hayn lahayd wiilka ayadada u tahay kuleyba Soomaalidan halaag baa ku socda Soomaaliya haddaadan baraarugina oo dalka iyo dadka aan loo kicin waxaan idin leeyahay wallaahi Soomaali baa jiri jirta baan laga sheekeen laakiin Soomaali way joogaysaa ogaada Soomaali meel aadayso ma laha laakiin Soomaali baa burburaysa inta fahantaa muhiimsan intaanan fahmin baa liidata waxaan idin leeyahay Soomaali waa Soomaali fahanta haddaan la isku arxam la isku naxariisan dee waxaan idin leeyahay gadashadu ha noqoto wax uu alla baneeyay laakiin gadasho bil'aadana waa xaraan ilaahay halala oo casiisa la weydiisto marka nolosha aad bay u qosooyin badan tahay yarkan Abdaasiisna wareysiga qaab u qaaday 80% waa ku celis sababtoo ah
lambar 1 asaga waxaa ka muuqata qalqal, lambar 2 waxaa ka muuqata yacni degdeg fudeed. dee wariye fudud waryahanka dhuligay inaa arkin u malaynaya, dee kanna waa kuwii facebooka ka qeylin jiray uun leh. marka waxaa idin leeyahay Soomaaliya waxaa waa yarkan ama shirkadahan waaweyn Astaan TV ama Bila TV ama youtubradan, waxaan leeyahay bal yarka inaad raadisaan, bal waxaad samaysaan baaris muuqaal heesan xigmadeysan laga soo shaqeeyey, bal bulshada inaad la soo wadaagtaan baan rajeynayaa dhammaan. dee yarkan waxaan leeyahay Cabdicasiis waxaa waa mahadsanid bro, waxaa wax aysan dadka qaban karin baad qabatay oo waadna hor keentay, oo dee wixii laabtiisa uu ku jiro uu ka hadlay. hadaladiis waxaa ka mid ahaa maasha allah alxamdulilah. hadal waxaa jira su-aal weydiisay oo tiri dee wuxuu yidhi dalku waa inuu hor u socdaa. yarkan dad badan buu dhaamaa, dareesku waa darees la xirtay laakiin qalbiyada baa la isdhaamaa. yarkan qalbigiisu waa nadiif. muuqaalkeeni intaasaa kusoo koobayna dhammaan asxaabta, waxaan idin leeyahay nabadgelyo, kulanti dambe oo xiise leh. aniga waa walaalkiin Abuu Walaad. fadlan haddii aad youtube-kan ku cusubtahay subscribe noo saar, siina share gareemaad sanid. waxaa weeye youtube-ka kor ha loo qaaday. ciao xantana dumarka loo daayo.